I'm Beth. When I was a boy, I wanted to be a fireman when I grew up. hadalkiisa wuxuu ku bilaabay when I was a boy markaan ahaa wiil dabcan hadda waa qof weyne I wanted to be waxaan doonaya inaan noqdo a fireman nin markaa dabdamisa ama dabbaktiye ah when I grew up markaan koro ee weynaado. How about you, Beth? Did you have any childhood dreams? gabadhii ayuu sii weydiiyey markaa how about you ka waran adiguna did you have miyaad lahayd any childhood dreams wax riyo caruurnimadiya miyaad lahayd. I wanted to be an astronaut and fly to the moon. I wanted to be waxaan doonaya inaan noqdo an astronaut yani cilbiyeen someone training to travel airspace micnihiisu yahay qof markaad dayax ka micid doonaya noqon kale and fly to the moon iyo inaan u safro dayax. When we're young, most of us have big dreams and plans for the future. ninkii ayaa sii watay hadalka markaa wuxuu yidhi when we are young markaynu yaryarnahay most of us inteena badano half waxaynu leenahay big dreams riyooyin waaweyn and plans for the future iyo qorshayaal markaa mustaqbalka. Unfortunately, as we grow up, these childhood dreams often get lost. isagoo sii wata hadalkiisii markaa wuxuu yidhi unfortunately nasiib daro as we grow up sidaynu u soo weynaano ama u soo korno these childhood dreams riyooyinkan caruurnimo often badana get lost waa la waayaa. In the adult world of jobs, money, families, and careers, but not for everyone. wuxuu sii raaciyey halka lagu waayay riyooyinkan gets lost baynu maraynay in adult world of jobs ayaa lagu waayay adduunkan qaangaadhnimo ee qof mashquul ku noqonayo maxay lacagtiisii qoyskii hadday noqoto iyo career iyo xirfadii laakiin but not everyone laakiin cid walba kuma dhacdo tan. Daisy from New Zealand and Herman from Argentina are two people who decided to follow their childhood dreams. gabadhi markaa waxay tidhi Daisy oo ka soo jeeda New Zealand iyo Herman oo ka soo jeeda Argentina waa laba qof oo go'aansaday inay raacaan riyooyinkoodii caruurnimo. They wanted the world to become a utopia. waxayna doonayaan labada qof inuu adduunku noqdo mid utopia ah. utopia micnaheedu yahay perfect adduun dhammaystiran oo wax kasta yaal waana imaginary wax khiyaali ah. A perfect, ideal society where everyone is happy and gets along with each other. In this perfect society bulsho dhammaystiran where halkaasoo everyone cid kastaaba is happy ay faraxsan tahay and get along each other markaa qofba qof kale u fahmayo. In this program, we'll be hearing how Daisy and Herman made their dreams come true. waxay tidhi in this program macluumaadkan ama podcastgan we will be hearing waxaan maqli doonaa how sida Daisy and Herman made their dreams came true ay riyooyinkoodii uga dhabeeyeen. Not by changing the world, but by changing themselves. iyagoo aan bedelin adduunka laakiin bedelin nafahooda. And as usual, we'll be learning some new vocabulary too. But waxay tidhi as usual sida caadigana we will be learning waxaan baran doonaa some hoogaa new vocabulary to eraya cusub sidoo kale